bismillaahi araxmaani araxiim. dagaalkii Lafoole ee dhex maray Soomaalida iyo Talyaaniga 25 Novembar sanadkii 1896. qaybta afraad. dadka Soomaaliyeed waxay degan yihiin dalka Afrika dacalkiisa bari. hadalku wuxuu noo mareeyey qaybtii saddexaad in Antonio Sheki uu u muuqday astaanta isballaarinta iyo gumaysiga Talyaaniga ee geyiga Banaadir. haddaba kooxihii Soomaaliyeed ee aan horey usoo sheegnay waxay si kala duwan uga jawaabeen Talyaaniga oo si tartiib ah balse aan kala joogsi lahayn ugu soo siqayay xeebaha Banaadir, waxaana caddayd inuu kusoo dhiiran doono dhulka gudaha ah. kooxahaas haddaan ku bilowno, saldanadii Galladii waxay ahayd mid uu hoos u dhac ku yimid qarnigii 19aad. waxa kale oo daciifay qarnigii 19aad isbahaysigii Galladii oo ay madaxda ka ahaayeen mashaayikhda Goobroon ee Afgooye markuu qabsaday Suldaan Cismaan Axmed sanadkii 1880. tusaale ahaan, suldaanka ma uusan ciqaabin Biyamaal markii ay xireen laan ka mid ah webiga Shabeelle oo loo yaqaanay webi Goofka, taas oo ay dhibaato ba'an ka soo gaartay beeralaydii Galladii ay xulafada ahaayeen, sida uu buuggiisa ku qoray Levi Casanelli. haba jireen dibudhacyadaas, Suldaan Cismaan waxa uu dhaxlay barakada ama karaamada jilibka uu ka tirsan yahay ee Goobroon. Soomaalida degan gobolkana ixtiraam ayay u hayeen. bartamihii sanadadii 1890aadkii ciidamada Suldaan Cismaan waxa ay weli ahaayeen kuwo aad u xoog badan, waxayna ka adkaadeen Hintire oo ay iska soo horjeedeen. dadka intiisa badan waxa ay shaki ka qabeen isballaarinta Talyaaniga, waxaana laysla dhex mariyey in Talyaanigu la wareegi doono dhulkooda iyo beerahooda. markuu Talyaanigu dhulka soo galay, Galladii arrintaas way ku kala qaybsameen: in la iska caabiyo Talyaaniga soo galay xeebta Banaadir iyo in la soo dhoweeyo. dadku waxay rabeen in ay iska caabiyaan, haddana habdhaqanka suldaanka iyo madaxda ayaa si taxadar iyo xeel siyaasadeed leh usoo dhoweynayay joogitaanka Talyaaniga ee xeebta Banaadir. isbahaysiga Galladii iyo Wacdaan ayay xilligaa la soo daristay xaaladda cakiran, waayo qaar badan oo ka mid ah Wacdaan ayaa kasoo horjeestay in shisheeyaha wax heshiis ah lala galo. suldaanku wuxuu bilaabay inuu qaabilo Talyaaniga, wuxuuna xiriir saaxiibtinimo la yeeshay guddoomiyeyaashii Talyaaniga ahaa ee joogay Muqdisho. sida muuqata, Sheki waxa uu dareemay in Suldaan Cismaan uu weli yahay cudud lagu xisaabtami karo, waayo sahankii Lafoole ee hoogga ku dambeeyey waxa uu ahaa bilowgii qorshihii Sheki ee isbahaysiga Talyaaniga iyo Galladii. wacdaan waxay u badnaayeen xoolo dhaqato, ma badnayn inta beeraley noqotay qarniyadii ay isbahaysiga la lahaayeen Galladii oo u badnaa dad beeraley ah. sidaan hore usoo sheegnay, Wacdaan waxay kasoo horjeesteen wax heshiis ah oo ay la galaan shisheeyaha. mowqifkaas qallafsan ee shisheeye diidka ahna waxa uu ahaa dhaqan Wacdaan. haddaan taariikhda dib ugu noqono, meesha la yidhaahdo Lafoole iyo sababta magacaas loogu bixiyey waxay ahayd halkaa qabiilka Wacdaan waxay ku jebiyeen Gaalamadow markii ay usoo haajireen Shabeellaha Hoose qiyaastii qarnigii 18aad. sidaas awgeedna waxaa loo bixiyey Lafoole lafihii daadsanaa dartood. sidaasna waxaa buuggiisa ku qoray Levi Casanelli. ta kale ee daciifisay isbahaysiga Galladii iyo Wacdaan waxay ahayd suldaanka Galladii. Wacdaan waxa uu ula muuqday inuu yahay mid ka warwareegayo cambaaraynta isballaarinta Talyaaniga ku sameeyey xeebta Banaadir. ka sokow daciifidda xiriirka ay la lahaayeen Galladii, waxa kale oo dhacay abaarihii 1890aadkii, kuwaas oo horseeday dad badan oo Wacdaan ah inay ka hayaamaan deegaankooda. Wacdaan waxay ahaayeen Soomaalida degan dhulka ugu horeeya ee uu Talyaanigu kusoo foolan yahay waqtigii isballaarintii Sheki. hogaamiyayaashii ugu saameynta badnaa ee Wacdaan waxaa ka mid ahaa Sheekh Axmed Xaaji Mahdi, oo ahaa sheekhii aanu horey uga soo hadalnay qaybtii koowaad ee dagaalkii Lafoole, balse haddaan isxusuusino ahaa reer Muqdisho, laakiin markuu Talyaanigu soo degay Muqdisho u cuntami weysay in uu ku noolaado magaalo gaal dhinac ka degan yahay, ayna la noqotay arrin aan loo dulqaadan karin.
una guuray tuulada Nimow oo koonfur ka xigta magaalada Muqdisho kuna tiil dhulka Wacdaan, iyo abaanduule Xasan Xuseen oo ka mid ah hogaamiyaasha Wacdaan oo sida weyn uu saameynta ugu yeeshay Sheekh Axmed Xaaji. Xasan Xuseen waxa uu ahaa madaxa qaybta ugu weyn ee qabiilka Wacdaan oo loo yaqaanay Abuukar Mooldheere. Abuukar Mooldheere ayaa ahaa kuwa ugu tirada badan Wacdaan, sidaas darteedna ugu xooga badnaa qabiilka Wacdaan. Dhammaadkii qarnigii 19aad Xasan Xuseen waxaa lagu xusuustaa inuu ka mid ahaa raggii ugu horreeyey ee madaxa ka lulay kana hor yimid Talyaaniga. Dagaalyahano ay isku reer yihiin ayay u badnaayeen xoogagii sahanka Sheeki ku weeraray Lafoole, wuxuuna ahaa afhayeenka u hadla Abuukar Mooldheere oo si adag u boorinayay in la xanibo wadooyinka safarada taga Muqdisho oo uu macnaheedu ahaa cunaqabatayn dhaqaale. Biimaal wuxuu ahaa qabiil aad caan ugu ahaa markay tahay dhaqanka iska caabinta koonfurta Soomaaliya, si la mid ah kooxaha kale ee Banaadir. Biimaal wuxuu sidoo kale ka feejignaa isfidinta Talyaaniga ee xeebta Banaadir. Bilowgii, Biimaal waxay si taxadar leh ula socdeen ficilada Talyaaniga, iyaga oo isku dayayay in ay soo dhoweeyaan haddii aysan wax khatar ah ka imaanayn. Haddana waxaysan su-aal ka taagnayn in iska caabinta marka ay ahayd tii ugu kululeyd uguna dheerayd gobolka Banaadir. Taas la yaab ma laha marka la eego taariikhdii hore ee Biimaal. Halgankoodii joogtada ahaa ee ay kula jireen cadowyo badan waxay ka dhigtay kuwo isku duuban iyo cudud militari oo aad uga adag kuwa beelaha kale ee koonfurta Soomaaliya. Qarnigii 19aad oo dhan Biimaal waxay u istaageen sidii ay u difaaci lahaayeen dhulkooda iyo madax bannaanidooda, ugana hortegi lahaayeen xadgudubyadii ay ku haysay saldanadii Galadi. Reer guuraagan aadka u qabka weyn ayaa si adag iskaga caabiyey suldaankii Zanzibar oo saameyntiisu kusoo kordhaysay magaalada Marka, iyaga oo weerar gaadma ah ku dilay guddoomiyihii magaalada isaga iyo 40 askari ee kale sanadkii 1876. Iska caabinta Biimaal cudud militari keliya ma ahayn ee waxay awood u yeesheen in ay iskaga caabiyaan suldaanka Zanzibar oo ahayd ka hor Talyaaniga in ay cunaqabatayn kusoo rogaan magaalada Marka si ay u xaqiijiyaan saameynta ay ku leeyihiin magaalada Marka. Mararka qaar oo ay khilaafyo soo kala dhexgalaan hoggaanka Biimaal ee dhulka gudaha ah iyo qoysaska Carabta iyo Soomaalida ah ee Marka, oo iyagu aad ugu xiisoonaa in ay xiriir la yeeshaan quwadaha shisheeye. Biimaal waxa ay joojin jireen safarada badeecadaha geyn jiray magaalada, taasoo ay u leexin jireen tuulooyinka yaryar ee ku teedsanaa xeebta. Cunaqabataynta waxay si aad ah waxtar ugu lahayd saameynta Biimaal ee siyaasadda magaalooyinka, sida uu Talyaanigu ogaan doono sanadkii 1904. Biimaal waxa ay ka koobnaayeen 4 qaybood oo ku fidsanaa dhul xeebeedka u dhexeeya Jasiira ilaa iyo Mungiye, iyo marka loo baxo dhulka gudaha ah iyo dhul beereedka ku teedsan Webi Shabeelle. Qayb kasta oo ka mid ah qaybahaasi waxaa matala hogaamiyayaal diineed oo loo yaqaanay mucallimiin, iyo hogaamiyayaal dhanka siyaasadda iyo ciidamada qaabilsanaa oo iyagana loo yaqiinay malaaqyo iyo ammaanduulayaal. Waqtiyada qalalaasuhu jiro, madax 4 qaybood ka kala socdo ayaa shir isugu imaan jiray si ay u dejiyaan siyaasad midaysan oo waxqabad. Markii uu Talyaanigu yimid xeebta sanadkii 1890, hogaamiyayaasha Biimaal waxay geli jireen shirar joogto ah si ay isugu dubaridaan qorshe midaysan oo ku aadan ismuujinta lama huraanka ah ee u dhaxaysa isballaarinta Talyaaniga iyo iska caabinta Biimaal. Dowladda Talyaaniga waxay mar walba u arki jireen inay tahay cadow, waxaana ka go'naa iska caabinteeda. Siyaasadda gumaysiga ayaa iyadana ku wajahneyd kala qaybinta hoggaanka Biimaal iyo sidii loo wiiqi lahaa mucaaradadooda. Waxaa la yaab ahayd sida ay Biimaal u soo bandhigeen halgan midaysan xitaa markii laga adkaaday sanadkii 1908. Halkaa waxaa noogu dhammaystirmay sababihii keenay Axad Shiiki, waxayna hadda goobtu u xaaran tahay inaan ka hadalno wixii dhacay maalintii Khamiista ahayd ee 25 Noofembar 1896 iyo subaxnimadii 26 Noofembar ee isla sanadkaas. Waxaana ka jawaabi doonaa dhowr su'aalood oo kala ah: maxaa dhacay labadaas maalmood? yaa weeraray oo cagta mariyey sahankii Talyaaniga? iyo sidee dhacdadani u kicisay dabkii iyo iska caabintii gobolka Banaadir
kaas oo socday ilaa iyo sannadkii 1908. haddaan u gudubno dhimbishii ololisay dagaalka, Lafoole sidaan hore usoo sheegnay waxay ku taal dhulka Wacdaan dhexdiisa. waa dhul geedgaab iyo dhul cawseed jiq ah. waa meel ku habboon weerar gaadma ah. Wacdaan waxay sugayeen wakhtigan maadaama sheeki uu ahaa mid aad u xaqirsanaa qabaa'ilka Soomaaliyeed ee ku dhaqnaa Banaadir, iyo isaga oo ay ku jirtay maskax gumaysi, kuna taamayay in uu mar uun ku habsado khayraadka hodanka ah ee Soomaaliya. sidoo kale Wacdaan ayaa bilowgiiba aad uga soo horjeestay in gaalada lala heshiiyo sidaan hore usoo sheegnay. habdhaqankaasna wuxuu ahaa mid ku soo jiray dhaqanka Wacdaan. arrinta kale ee sii xoojisay dareenka gaala nacaybka ah waxa ay ahayd imaatinkii Sheekh Axmed Xaaji. sida muuqata fikradihiisu ay saamaynta ku yeesheen hogaamiyaha kooxda ugu weyn ee Wacdaan ee Abuukar Mooldheere oo ahaa hogaamiye Xasan Xuseen. hogaamiye Xasan Xuseen oo uu heliyo Sheekh Axmed Xaaji ayaa waxay ku guulaysteen sidii looga dhaadhicin lahaa dadka inay diidaan gumaysiga Talyaaniga ee Banaadir. sidaan hore usoo sheegnayna arrintaa waxay saamayn weyn ku lahayd shaxda siyaasadeed ee Banaadir, oo ay ugu weyn tahay daciifinta isbahaysiga Galladii iyo Wacdaan. Galladii dhexdeeda dadku waxay rabeen inay iska caabiyaan isballaarinta Talyaaniga, laakiinse suldaanka iyo maamulka sare ee saldanadda ayaa wuxuu si siyaasadaysan usoo dhoweynayay Talyaaniga, taasoo ay Wacdaan si tartiib tartiib ah uga sii durkayeen Galladii, una dhaqaaqeen dhanka Biyamaal oo ahaa cadowgoodii hore. dhacdadii dagaalka 25 Noofembar sannadkii 1896 dowladda Talyaanigu waxay ogolaatay inay gudaha usii gasho Banaadir, ayna ka baxda xarumihii Muqdisho. waatuu sheekiisu ilaa wakhtiga maadaama uu aad ugu xiisoonaa inuu heshiis la galo suldaanka Galladii, kaas oo uu rumaysnaa inuu yahay mid awood leh, qaybna ka noqon karo qorshaha Talyaaniga ee Soomaaliya. sheeki iyo kuwii kale ee ku helinayay socdaalka waxay ogaadeen dabcigii gaaladiidka ahaa ee Soomaalida goor dambe oo ay xeero iyo fandhaal kala dhaceen. intaana waxaa noogu dhammaaday qaybtii afraad ee dagaalkii dhex maray Talyaaniga iyo Soomaalida sannadkii 1896. qaybta shanaadna kala soco isla halkan oo ah janalka Rugta Hiddaha. taariikhdu dadkay bartaa inay dantood gartaani. taariikhdu dadkay bartaa inay dowladtuusan maraani. Done.